shirkadda leydhka Telesom Electric Company ee loo yaqaano TEG oo ka mid ah shirkadaha ugu tayada wanaagsan isla markaana ugu horeeya dhanka leydhka marka la eego guud ahaan Soomaaliland ayaa maanta ku guuleysatay inay daha furto isla markaana dalka ay keento mashruuc ballaadhan oo si fudud awoodda leydhka looga dhalinayo tamarta cadceedda ee loo yaqaano solar systemka. Mashruucanina waxa uu ka mid yahay mashaariicaha kala duwan ee inta badan shirkaddu ay ku maalgashato dalka. Sidoo kalena shirkaddu waxay maanta bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ugu bishaaraynaysaa isla markaana mashruucan uga dhex faydaysanaysa in qiimo dhimis dhanka leydhka oo 20% ay u samaynayso. Haddaba mashruucan maanta daha furayso shirkaddu ee tamarta cadceedda looga dhalinayo leydhka waa mid bulshada dan u ah marka la eego awoodiisa iyo dhaqaale yaraantiisa iyo sidoo kale dhanka ammaankooda. Sidoo kale leydhkani ma aha mid waqtiyo gaar ah ku shaqaynaya balse waa mid 24 saacadoodba ku shaqaynaya oo ku sahlaya inaad wax kasta ku qabsato isagoo markaasi kaga jaban leydhkan hadda la isticmaalo. Munaasibadan ayaa maanta ka qabsoontay Hotel Baraar ee magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda ugu horeeya wasiirka macdanta iyo tamarta iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee shirkadda Telesom, saraakiil ciidan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda iyo dawladda hoose caasimadda, salaadiin, aqoon-yahanno, waxgarad iyo marsharaf kale tiro badan. Ugu horeyn waxaa munaasibadan ka hadlay isla markaana daha furay mashruucan gudoomiyaha shirkadda leydhka Telesom Electric Company Muuse Cali Cige wuxuuna ka warramay faa'iidada kala duwan ee mashruucani u yeelan doono bulshada reer Soomaaliland. haddaan u imaado tamarta cadceedda iyo mashruucan guud ee aan iminka furayno ama maanta aanu dah furayno korontadii aan dadka ka gadaynay ama aan dadka ka iibinaynay ee aanu servicekii aan bixinaynay korontada gaarka ahaa in aanu isagana ku soo kordhino tamarta cadceedda inaan ku soo kordhino annagoo ujeedadeedu ay tahay in aan waxyaalo fara badan wax ka qabanno hadday ahaato pollutionka hawada hadday ahaato maxay ahayday qiimaha maxay ahayday korontada oo isaguna iminka qaali nagu ah lagana dhalin jiray bahashi keli ahayd diesel keliya ama naafta keliya laga dhalin jiray isaga laftiisana inaan wax ka qabanno oo taasna aanu hoos u dhigno annagu oo doonayna ayaa waxay noqotay marka in aanu mashruucan galno. mashruucan tamarta cadceedda waxa uu bilaabmay hindisihiisu 2018 ayuu bilaabmay hindisihiisu markaasaa dabadeetana aanu dalbanay shirkado noo soo qiimeeya markaa tamarta cadceedda ama mashruucan noo qiimeeya isagoo markaa ka koobnaa 5 magaalo oo kala duwan ka koobnaa Hargeysa, Gabiley, Wajaale, Boorame iyo Ceel Afweyn. buuhoodna iyadu way kasii horreysay oo isagu wuu kasii horreeyey laakiin intaas ayaa mashruucan